السلام عليكم. annagoo ka dheregsan faa'iidooyinka wax akhriska haddana talo wax akhriska iyo aqoontu miyihiin faro lagu ogaan karo weynaanta quraanka. jawaabta su'aashan saad u ogaatid daawo qisada Daniel iyo sidoo ku islaamay. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biir muuqaalkana like saar mahadsan. magacaygu waa Daniel waxaan ka soo jeedaa Stockholm laba dugsina maamule ayaan ka ahay jaamacadda Stockholm ayaan ka bartay dhaqaalaha sidoo kale waxaan ka bartay falsafada taariikhda diimaha iyo luqadaha oo waxaan ku hadlaa 8 luqadood waxaan jecelahay wax akhriska gaar ahaan kutubtii hore sababtaan u jecelahay wax akhriskuna waxa weeye inay hooyaday maktabad ka shaqayn jirtay waagii aan yaraa oo markaas ayaan bilaabay inaan jeclaado wax akhriska iyo aqoonta guud ahaan marka laga yimaado akhrinta quraanka iyo kutubtii diimaha waxaan jecelahay inaan akhristo kutubta sooyaalka gabayada iyo sheekafaneedyada Daniel yaraantiisii waxa uu maqli jiray inuu islaamku yahay diinta fuqarada argagixisada iyo dagaalada sidaa daraadeed wuxuu doonay inuu iskii u soo ogaado xaqiiqada ka hor intaanan muslimiin yaraantaydii waxaan ku soo koray miyiga waqooyiga Stockholm halkaas oo aabahay beer ku lahaa weligayna khamri ma cabin hilib doofaarna maan cunin oo aabahay baa igu oran jiray ha cabin khamriga hana cunin hilib doofaarka maxaa yeelay isna uma wanaagsana qalbigaaga caafimaadkaaga iyo jidhkaaga oo dhan guud ahaan waxaan ka dhashay reer aqoonta jecel waxaan jecelahay suugaanta iyo faniyada kala duwan gaar ahaan suugaantii qarniyadii hore oo aad u qurux badnayd Daniel jacaylkii uu jeclaa wax akhriska iyo suugaantu waxay tusiyeen in qiimihii suugaantu hoos u dhacay quruxdiina ka tagtay markii ay dadku ka tageen diintoodii iyo rabbigii abuuray waxaan quruxda ka dhaxelay abuurka jidhkeena iyo wajiyadeennaba wuxuu nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay yidhi inna allaha jamiilun yuhibbul jamaal xadiiskana aad buu ii saameeyay oo waxaan ogaaday in quruxdan oo dhami ka timi xagga Alle markii ugu horeysay ee aan quraanka akhriyana waxay ahayd maraan galay maktabadda oo aan ka soo iibsaday tarjumada quraanka kaasina waxa uu ahaa quraankii ugu horeeyay ee aan akhriyo يسقط الناس من قوة القرآن ومن عظمة آياته وقال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا التأثير على كل حال قوي xilliyada qaar insaanku wuxuu la dhacaa saameynta quraanka iyo weynida aayadaha ku dhex jira wuxuu Alle yidhi a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna sanulqi alayka qawlan thaqila waxaan kugu soo dejinaynaa hadal culus waxa jirta dhacdo xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam dhacday taasoo ahayd inuu nabigu isagoo tukanaya uu akhriyay aayadaha dhamaadka suuratul najm a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim أفمن هذا الحديث تعجبون ما قرآن كان آيات لي يابنتهين وتضحكون ولا تبكون وتكوكوس ليسان إذن كو بينينيا إسلامر كان أيضا أويين عبسي الدرتيد وأنتم سامدون إذن كو ولبنا هلمانسان إسلوين فاسجدوا لله واعبدوا إيدادو إيبئو السجودة وعابدة مشركين تي قريشنا وحي أهايين قار مقلي آيادهان markii uu nabigu aayadii ugu dambeysay akhriyayna waxa sujuuday nabiga iyo asxaabtii ku daba tukanaysay quraanka weynidiisa darteedna xitaa waxa sujuuday mushrikiintii oo Abu Jahl kamid ahaa Daniel kadib muddo dheer oo baaritaan iyo wax akhris ah wuxuu u soo dhawaaday diinta islaamka waxaanu go'aan ku qaatay inuu ku dhawaaqo shahaadada isaga oo ka waramaya xaaladana waxa uu yidhi amiintii aan ku dhawaaqay shahaadada aad baan u farxay waxaanay ii noqotay bil cusub iyo dhamaadkii aan ku baadhay xaqiiqada
waxaanan u malaynayay in ka hor intaanan muslimin aan ku qasbanahay inaan gebi ahaanba qur-aanka wada akhriyo. Daniel wuu wada akhriyey qur-aankii, dabadeed wuxuu go'aansaday inuu ku dhawaaqo shahaadada. أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Daniel wuxuu hadda maamulo ka yahay 2 dugsi, sidoo kale isagiyo nin kalena waxay banki islaami ah ka dhex aasaasay. muuqaalka maanta iyo qisada Daniel ba intaasi noogu eegyihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.